أنا وصلنا دي شيء جاي هرت ده هذا الكن يسوي موضوع كله أورد كيف كسهلنا وحنا مردين تعبنا يا كل يبقى أنا بالصومالي بانا أنا جو مجا الصومالي يشرفتي سئي كفان كيسة يوحي هاي بنشعله تذكي سنة نشعله تلكي سنة نشعله أنت مجا عيوا أظن كم مقشين وكواركتنا أنت أصلا بيحي مركاتها إذا حوجا كتعبته ده واحد بدل لقمة وركرون يرفرت تجاليه أنا نراهضه برهورت الصومالي محي حي صومالي ميمك محي النقط يا صومالي مك محاول تنا يا حوجا بالأرض كيجينا أنا حوجا يدين يرد العرارة صومالي دو محي حي صومالي دو ما أنت إلا أدونك وسكور ريسان مركها ولا حل لسانه يصور كأي مانتا كهيستان إيو كأي صومالي أهي صومالي ميانا أهين تيولي جد إسيقا إيو شرفتا كل نوريد قرن جي أفرادية الضبادية كي صدحية طبنادية كي تضبية طبناد صومالي تيولي جدتكي إسقيمين تري أو شرفتا لها ميانا أهين صوماليا ميانا أهين تدكي قبنمو إيو جيسنمو إيو مرتقلين با أدونك بوك تولو دلقو قرأي ميانا أهين صوماليا صومالي ميانا أهين كوي حرنما أو دريركا إيو قبنمادا هلقنكيدي هقامنا إياقا ما هي أفريقا دن ميانا أهين كوي فرنسيسي إنجليسي طلياني إيو إنتي اللغة كوشيدنا ييبا مركي عالوايين صوماليا ميانا نقول ميشي يوغو الرئيسي أي مركي مدفعية ديارة دي مركب لغا سو توروغو عالوايين فودنا قلوايين ديارتها كدوقيين إيه أفريقا يوغو الرئيسي ميانا هنا يتليح بالبرينيين صومالي تي أحمد قوري سيد محمد عبد الله حسن كردشين ميانا أهين صومالي تي وليد اسكتو بناي يا ميانا أهين صومالي تي markay xornimadeeda soo dhacsatay afrikana in badan hogaamisay oo u soo dhicisay tii iyadu markay qaadatay xornimada dimuqraadiyadan maanta adduunka oo dhan sanka laga marmariyo oo lagu faano tii iyadu ugu horeysay afrika qaadatay miyaan ahayn ee kala dambeynteedii iyo sharcigeedii iyo dastuurkeedii iyo electionkeedii oo qof waliba codkiisa dhiibanayay madaxweynihii ugu horeeyay Allah u naxariistay aadan cadde uu kaga digay Soomaali miyaan taa ahayn Somali تي أدون أفريقيا أردن هرمرك كجدينيين مين هين تي صومالي تأفكي ذا هويو أنت يقرأتي دولة ده وجوه الرئي قرطيها إلى معمول يوح برشة يكردقن جمعه ده بيه كجدر جي مين هين أفكار عادي ما هين صومالي تي تعلين تهذا إلى دكسيجا خاصة إلى شام عدو بلا شهيد وأدينا شام عدو كترته بوكد مريجا لسين شري جندا ميانا يهين أدون كمان دعوة تي دت كده عافيماتك بلاش كا ولا جارسي ميانا صومالي يهين صومالي دي نقين ميانا يهين صومالي دتكي شرفت بدنا وحوي هنك وينا دقن كوده iyo dhaladkooda ku faani jiray inay Soomaali yahay waxa ku dhacay Soomaalidii aan ka ahayd oo aynu isla wada garanaynay xagee aaday maxay noqotay imanka tamaanta dhacday oo laga yaabo inta aniga iga daada yari inaanay garanaynba dawatanaynu maanta u jeedno dal Dubai وخريطة بكسي بحية تد هدي أنا استبق غبن طبر قاية تد تهريب يتطلعان كل ماضي تد لا تشري أو لقى تشري أو لقب صدي أو لكلا قيبية وأنا سوقي حالتي إنه ما نحن بمريسة حالتي إنه 4.5 في مريسة بل 4.5 عن كلمات كسوة قبطبة يعني وحوية
markii salaada la soo dejiyay عليه الصلاة والسلام نبينا كنتم بالودي بباليرو ومدادي وجي markaasuu ilaahay casaawajalla intuu ku noqday yiri dadkayga ilaahay konton waa ku badantay kada si uu noqnoqonayay ayaa shan looga soo reebay 4.5 ma wax dad loola yimaadaba ummadeena meesha ka khaldantay waxyaabaha kamida waxa kamida ilaa soo diri imbegeti xaqan marba shir baa la inoogu soo qabtaa dad baa wax la inoogu soo dhiiba sidoodii iyagoo inoo wada oo aan oran war waxani wax dadka iyagii la hortagi karo maaha ayaa la inoo keenaa waxaad ku tiraahdaa dadkaagi waa kuwaase dhibic shan baa tihiin war Soomaali waa tii arrimahooda aanay islaan jirin ee geedka ku dhamaysan jirtay garteeda Soomaali waa tii afarta faatixo isu mari jirtay kala dhaqaaqi jirtay Soomaali waa tii imika inoo sheegay professorkii uu lahaa isku mid baatiin isku afbaatiin isku dhaqan baatiin xagee baladu idinka haysataa waa tii hibadeena inoo sheegay uu lahaa dad aad u maskaxad badan baatiin laakiin isma ogidin aan waxaan oran lahaa aynu istaba qabanno aynu hanweynidii iyo yani dhigtii iyo dhaqankii aynu ilaashin jirnay aan ku soo noqono qof waliba naftiisuna ka bilaabay hadda naftaada uu sharaftid waxa kale waa iska iman karaya oo de waxa weeye Soomaalidu waxa la oran jiray qofkaasi dhigtii buu dilay waxaasi dhigtii buu dilay waan kalmad xun laga maqal hadii adiga laga maqlo gurigaaga laga maqlo xaafadda laga maqlo magaalada dhan laga wax war magaaladaas magaalo khayr lama aha waa ya marka taa laga taxadiro waxaan idin gelayaa un xalku waxa weeye iyadoo Soomaaliya gamcaha isqabsato midowdo dantooda garato jiilka dambena uu garto in baan weydiiyo waxaan ku iri xagee baladu ka dhacday markaasuu yiri dadkii gobonimada keenay 60kii iyadoo bahashiyo fiican baysan noogu dhiibeen annaguna wuxuu yiri 20 jiraan ahayn islaha xoogay waxbaad barateen markaasaan annaguna ku loo farnay buu yiri ilaa 60kii ilaa 90kii baan ku ciyaarayno xagga u ridnay annaga ku tumanay buu yiri wax kale yaan leedin sheegay dhalinyarada iminka joogta marka inay iyaguna sida goboladan iyo degmooyinkan iyo kala qaybintan iyo qabyaaladan iyo qabiilkan iyo qaraabo goyskan inaanay ku soconay mar wada gartaan war wada jirbaadantu ku jirtaaye aynu mar Soomaalinimadii iyo magaci sharafta lahaa aynu dib ugu soo noqono inta haddaan ka gudbo halka waxa la leeyahay 5 daqiiqo hadhay waxa ban moodayay inaan daqiiqo hadlay ninkayga hadalka ka baqay orodkii aan idin ku noqdo runtii waxa weeye waad ka dheregsantiin Cabdi Bilay iyo orodkiisii iyo guushii waqti yar oo iska kooban bay ahayd 30 sano ka hor bay ahayd ilaahay cimriga ha inoo dheereeyo taa waad ka dheregsantiin laakiin in yar baan idin ka sheegaya waxa weeye hamiga caawa dhamaan ka hadlayna waxa weeye qofka bini aadamka hadii uu leeyahay hami inuu meel gaadho hadii uu ku dadaalo ilaahayna la qabto uu gaadhaa aniga hamigayga yar oo koobnaa midaan luga ku taagnayn buu ahaa Soomaaliya aan internet lahayn TV-na lahayn wax kale lahayn hamigii yaraaya dalka dhexdiisa ka bilowday ee buuraha laascaanood ka bilowday adduunkan soo jebinaya waxa la yiri war hayaa waa balukaadi intii ka dambeysana waad la socotaan guushaas iyo wixii ay ahayd meeshan ka gaadhay biladii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee 30 sano ka hor waxa weeye aynu qaadanay okay laba wax marka hamiga waa la gaaraa mid sarana hal la yeesho laakiin laba wax baan idin ka sheegaya laynka markaan taagnaa culayska i hayay horta halgankii iyo isaga waxa weeye rough road iyo kidkid wixii aan maray taa idin ka sheekayn maayo laakiin dib badan bay ahayd laakiin laynka markaan taagnaa waxaan dareemayay in Soomaali oo dhami barasharka isaarnaa iyo culayska inay dhamaantood inta la soo qaaday dusha iga fuuleen markaan ka yaabay anigiiba waxay sironiyo geeli iyo loodiina miyay soo kaxaysteen ya horta dhibtaasay ahayd laakiin
guul waliba dhadhan iyo macaan bay leedahay iyo meel ay ku dhamaato waxa weeye anigoo dalka Talyaaniga jooga inaan ku qaaday dalka Talyaanigu muxuu ahaa dalkii ina gumaysanayay dalkiisii ayay ahay waxaan ka qaaday Ingiriis ninkii adduunka haystay ee Ingiriiska ahaa waa kii ina gumaysanayay markaas ayaa calankeeni la saaray ninka saddexaad wuxuu ahaa Mareykan oo waxa calankeenu ka sareeyay oo ka hoos babanayay calankii Mareykanka markaas musigeeni la saaray aniga secondkaas daqiiqada iyada ah oo aan dhex taaganahay adduunkii oo dhan calankaygu u taagan way dalkii Talyaaniga tahay kii webiga nagaga gudbayay way tahay Ingiriiskii oo waxaanu isla soo marnay taleexaan anigu ka yimi kii duqeynayay oo maanta calankaygiina saaran yahay ayna u taagan yihiin musigayagiina dhageysanayaan guusha waa la gaaraa aniguna dadka qof kasta oo himilo leh waxaan ku iraahdaa hadduu dadkeenu dadka waa niyad jebiyaan dadka waxaynu nahay runtii aniga baraka inaynu dadka ugu xun ee dadka niyad jebiyanahay marka haddii anigu waxaan jecelahay qof bini aadam yiraahdo cirkan tagaya inaan yiraahdo wardayaxa iyo daruurahana ku sii naso soomaad garan ya adeeduna taako ya adeedu dalaalnimo soomaad garan insha Allah guul baan inoo rajaynayaa Soomaali baan ahay magaca Soomaali hadii la wada qiimeeyo lagu faanana meel baynu gaaraynaa insha Allah Soomaali